السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتنا كحنا kanaalkeena kobciye kusoo dhawaada muuqaal cusub oo ah qaybtii labaad ee muuqaalkii hore aan kaga soo hadalnay dagaaladii ugu saameynta badnaa ee ka dhacay qaaradda Aasiya. kadib qabsashadii saliibiyiinta ee Qudus sanadkii 1999 miilaadiga muslimiintu waxay bilaabeen inay ayar dib ugu midoobaan bartamaha sanadihii 1980 hogaamiyayaashii saliibiyiintu waxay ku jireen khilaaf weyn oo u dhaxeeyay cidii la wareegi lahayd hogaanka boqortooyadii Baytul Maqdis balse dhanka kale caalamul islaami ayaa waxa mideynayay hogaamiyihii caanka ahaa ee Salaaxudiin al-Ayyubi labada ciidan ee saliibiyiinta iyo kan muslimiintu waxa ay ku kulmeen goobta loo yaqaano Xadiin oo in yar u jirta harada Dabariya ee dhulka Falastiin ciidamada Salaaxudiin ayaa awooday inay go'doomiyaan ciidanka saliibiyiinta iyagoona ka jaray sahayda iyo biyahaba ugu dambeyntii badanka ciidankoodii 20 kun lagu qiyaasay waxa lagu dilay goobta halka intii soo hadhayna goobta lagu qabtay oo waliba ku jiray boqorkii Baytul Maqdis ee Guy de Lusignan marka warkii guuldarrada masiixiyiinta uu gaaray baadariga Kaatooliga ee Urbaanka saddexaad waxa la sheegaa inuu u geeriyooday naxdin iyo shoog kadib guushan Salaaxudiin ayaa awooday inuu gacanta ku dhigo badanka magaalooyinkii iyo qalcadihii saliibiyiinta marka laga reebo labada magaalo ee Suuriya Antakiya intii u dhaxaysay sanadihii 1206 ilaa 1526 miilaadiga badanka qaarad oo ka Hindiya waxa maamuleysay saldanadii Delhi taasi oo ay dhiseen tarantii Maxamed al-Quriyi guuleystay dagaalkii labaad ee Taariin sanadkii 1526 xaakimkii Kaabul kaasi oo ay u ahaayeen Genghis Khan iyo waliba Timur Lenk kaasi oo lagu magacaabi jiray Daahiruddin Maxamed Baabuur ayaa weerar ku soo qaaday saldanadii Delhi ciidamada Baabuur oo lagu qiyaasay 15 kun ayaa awooday inay ka adkaadaan ciidamadii saldanada oo lagu qiyaasay 40 kun oo uu hogaaminayay suldaankoodii Ibrahim Loodi ciidanka saldanada ayaa watay 100 maroodi dagaal balse waa laga adkaaday sababtoo ah ciidanka Baabuur waxa uu watay madaafiic Loodi ayaa dagaalka ku dhintay halka Baabuur uu dhisay boqortooyadii Moqolka ee ka talinaysay Hindiya ilaa laga soo gaarayay sanadkii 1858 markaas oo ka adkaaday guumeystihii Ingiriisku saacadu markii ay ahayd 6:34 subaxnimo bishii May 27keedii sanadkii 1905 labada ciidan badeed ee boqortooyooyinkii Ruushka iyo Jabaan ayaa ku kulmay dagaal badeedkii soo afjaray dagaalkii u dhaxeeyay labadooda boqortooyo dhammaan Yurub ayay argagax gelisay natiijada dagaalkani kadib markii Ruushka uu la kulmay jab aad u daran khasaaraha labada dhinac kala gaaray waxa uu ahaa Jabaan waxa ay weeday 3 markab iyo 117 nin halka Ruushka uu dhankiisa waayay 28 markab 4386 askari oo la dilay halka 5917 kalena la qabtay boqortooyada Ruushka ayaa yar kadib isdhiibitaankeeda cilaamisay taasi oo keentay kacdoonkii 1905 ka dhacay Ruushka ee looga soo horjeeday Qaysarka dhanka kale dunida ayaa dareentay awood ay leedahay boqortooyada cusub ee Jabaan awoodda Jabaaniiska iyo hanqaltaagooda way sii korayeen ilaa jabkii ka soo gaaray dagaalkii labaad ee dunida sanadkii 1945 asxaabta nagu xidhan muuqaalkan oo ahaa qaybtii labaad oo aan kaga hadlaynay dagaaladii ugu saameynta badnaa ee ka dhacay qaaradda weyn ee Aasiya intan ayuu ku egyahay fadlan ha ilaan wixii faalla aad qabtid nagu reebtid qaybta faallada hana hilmaamin inaad subscribe saartid channelka daartida gambeelka digniinta si ay ku soo gaaraan muuqaalada ugu dambeeya ee aanu bartan soo galino waa aniga idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh